farxadda waalidiinta iyo macallimiinta daaban hayo waan dareemayaa ilmo lagu soo tabacayay in maanta u grade saddexaad oo KG gaaray uu gali doono 1 class 1 waa wax lagu farxo ilaahay lagu mahadiyo macallimiinta waan bogaadinayaa ciyaalka soo barbaarinayay xilligan waxbaridun ma aha barbaarin baa ku jirta akhlaaqdooda iyo disciplinkooga iyo habdhaqankooga waayo ilmuhu xaafadda markuu yimaado wuxuu imanayaa caruur kale kala ilaalintooda iyo isdhexgalkooga macallimiintu intaa ka shaqaynaysaana hawl adag bay hayaan ciyaalka da'dan jira haya iyaguna mas'uuliyad dheer oo macallimiinta ama secondary-ga ama jaamacadaha ama dugsiyada dhaxadhiga culays aan saarnayn baa xaqiiqatan saaran macallin baan ahaan jirayo waan garanayaa waan idila qaybsanayaa adeer farxadda waan idin ducaynayaa mustaqbalkan ka fiican oo sareeyo alla idin rajaynaya waan idin baarikayaa waalidiintana waan ducaynayaa aniga oo ku hadlaya afka maamulka dugsigan waxa la soo aasaasay 2020kii ayaa la soo aasaasay bishii 9aad waxa laga soo bilaabay taimika aynu xafladeeda joognay KG3ga ayaa KG1ka ayaa laga soo bilaabay KG1kaasi ayuu ku socday dugsigu imikana wuxuu marayaa ilaa grade-ka 6 ayuu marayaa waxaan doonaynaa markaa higsigeegu wuxuu yahay inaanu halkaa ka sii wadno oo sii xoojino oo himiladooda ay tahay markaasi ilaa heer jaamacadeed inaanu sii gaarsiino waxa aan halkan mahadnaq guud uga u marinayaa dhammaan macallimiinta juhdiga faraha badan soo geliyay gaar ahaan macallin Asma oo markaa waxa weeye ardaydeeda juhdi aad u fara badan soo gelisay ayaan aad ugu mahadnaqayaa waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa labada macallimiin kale iyaguna KG-ga maadaama aynu xafladda joogna ay tahay xafladii KG-ga labada macallimiin kale iyaguna Maariye iyo Hoolo oo iyaguna kaalin muhiim leh ka qaatay barbaarinta caruurta xafladda maanta aanu taaganahay waa xaflad inagu cusub hore uma jirin laakiin imika waa xaflad jirta ilmuhu wuxuu ka gudbayaa KG1 KG3 buu ka gudbayaa oo wuxuu gudbi doonaa KG3 KG1 1 buu gudbi doonaa insha Allah marka waxa weeye ardaydu intan ma aha inta kale hadayna insha Allah xaflad tan lamid ah ayaan u qaban doonaa qorshaha inoogu jirta marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaynu joognaa waa cilmi qofkana waxa ugu anfac badan inuu cilmi markaa ku suntanaado oo cilmiga nabiyullaahi aadam waxa la yiri walaqad karamna bani aadam nabiyullaahi aadam waxa lagu karaameeyay cilmi baa lagu karaameeyay markii malaa'igta waxa weeyi malaa'igta wuxuu kaga fadli badnay cilmi buu kaga fadli badnay markaas wa'allama al-aadama asmaa kullaha dhammaan waxa la baray aadan asmaada dunida oo dhan baa la baray markaas dabeedna taasi ayaa keentay in loo sujuudo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in aynu sii xoojino cilmiga oo sii wadno oo dabeedna waalidiinta sharafta leh hawsha nala galay aan halka kaga hadhin saddex dhadhaar baa weeyaan saddexda dhadhaar la sii xoojiyo oo la sii wado aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii maanta dareenkayga waxaan ku qiyaasa garan maayo waxaan hor fadhiya wajiyo aaday da'doodu yar tahay qurux badan ay tahay maanta maalintoodii farxadoodii koobaad ee waxbarasho ay galeen hambalyo maasha Allah aad yaad ardayda yaryar baan u hambalyeynaa ugu ducaynaynaa insha Allah ilaahay waxaan uga barnaynaa aqoontoodu inay haato aqoontii maanta barbilow ah kuwa noqda kuwa waalidkood iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca ilaahayna cilmigooda uga dhigo cilmi naafica biidnillaahi alkariim macallimiinta iskuulkan Almis aan uga bahadnaqayaa sida quruxda badan ay u barbaariyeen caruurta maanta halka horteena taagnay waxaan baleynayaa caruurta maanta qalin jabinaysa stage-ka maanta KG-ga oo runtii ahaa stage aanan aniga iyo intii aniga ila lodku hayna soo marin aniga waxaan u maleynayaa in inta ila lodku hiimaanaan anaga wax KG la yiraahdo uulu baanu ka bilaabi jirnay isla markaana xafladda nooma sameyn jirin ilaa iyo form 4-kayga anaga xafladda nooma sameyn waa ilbaxnimada iyo horumarka la gaaray bay ka mid tahay in imika KG-ga xaflad loo sameeyo qalin jabina
maxaan idhaahdaa leefallada kala duwanna sidoo kale loo sameeyo iyagana xaflad wax lagu tabca waxa ugu wanaagsan oo uguna qiimo badan uguna qaalisan dhalinyarada ama ubadka qarankan aynu arkayna iyo waddankanina waxa keliya uu eeganaya oo tabcanaya waxa weeyaan inay ummadiisa iyo ubixiisa soo koraya runtii lagu tabco oo la ilaaliyo waxaan ambaleynayaa macallimiinta tababarkan iyo carruurtan gacanta ku haysa waxaan aaminsanahay inay culays badan hayaan sababtoo waxa weeyaan ilmaha yareen carruurta halkaa taagni maanta ma aha dee carruur iyagu ismaamulayo oo iskuulkay joogaan iyo markay dee wax baranayaan intaba isu maamulayaan arrinta halkan ka socotaa waa barbaarin welibana waa barbaarin aan isleeyahay dee waa barbaarin loo baahnaa oo aan ahayn mid ay guriga iyo guryaha ay ka helayaan ilaahay dhibkiisa waxaan rajaynayaa inuu iskuulkani guulaysto macallimiintii wax soo bartay iyo maamulkana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina iyo la joogiina sidoo kale waxaan iyagana aan dee hambalyaynayaa waalidka maanta carruurtooda halkan ay ka qalin jebinayaan oo iyaguna maanta tacabkii iyo midhihii ay ku tacbayeen iyaguna arkaya intaa iyo maalmo badan iyo farxado badan insha allah waxaan rajaynayaa in ubadkooda ku ay la wadaagi doonaan xafladda tan bilan ee boqran ee maanta aynu u xafladaynayno midhihii 3 sano lagu tabcayay oo ah KG3 ardayda KG3 waa arday ka gudubtay marxaladda qalinqabadka oo u gudubtay marxaladda dugsiga hoose waxa muhiimadu tahay ilmaha maamul macallin waalid intaba waxaynu u heelanahay oo aynu adeegnaa ilmaha mas'uuliyad nin walba door ayuu ku leeyahay haddii aynu gacmaha isqabsano waalidka isku xidhnaano waalidka macallinka iyo maamulku waxa weeyaan beerta aynu beeranaa insha allah bidmillaahi kariim waxaynu ka sugnaa midho wanaagsan annaga maamul ahaan ahdaafteedu waxay tahay waxbarashada in number 1 laga dhigo laga dhiso ilmaha xagga diiniga waxa jira xisas gaara oo qur'aan ah oo kariima waxa jirto kale tarbiya islaamiya oo iyaduna laba ah waxa kale jira barbaarintii hadafkaygu wuxuu yahay iskuul ahaan almis ahaan inaynu soo saaro ilaahay bidmillaahi kariim annagoo ilaahay kaashanana ilmo akhlaaq ahaan dhisan aqoon ahaan dhisan diin ahaan dhisan dhan walba dhisan insha allah bidmillaahi kariim waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo howlwadeennada iskoolka almis iyo waalidiinta ka soo qayb galay xafladdan iyo da'yarta iyo ubadka iyo ubaxa iyagu halkan marxalad maraaxishoodii ka mida waxbarasho dhammaysanaya waa wax aad iyo aad loogu farxo waalid ahaan iyo ubad ahaanba iyo tacliin iyo waxbarasho ahaanba ubax iyo da'yar wax soo dhiganaya oo weliba marxalad maraaxishii waxbarashada amba heerarkii waxbarashada ka mida gebagabaysanaya